ولذلك بوحو تلماميا بوغيغان مركان قريه بو يدي waxa igu adkaatay inaan nabi maxamed oo dhan ka warramo buu yiri laakiin waxa laga yaabaa buu yiri waxoogaa sawiraa inaan idinka siiyo محمدkii nabiga ahaa محمدkii dagaalyahanka ahaa محمدkii rajulul acmaalka businessmanka ahaa محمدkii rajul siyaasiga ahaa محمدkii khatiibka ahaa محمدkii muslix ijtimaaciga ahaa محمدkii aqoonta ay ku soo hoyan jirtay محمدkii adoomaha xoreyn jiray محمدkii dumarka xoreeyay محمدkii qaadiga noqday محمدkaasi buu leeyahay taariikhiisa wax yar oo kamida maan idin sheegaya buu leeyahay buugga kan markaan qorayo ee nabi maxamedka naadirka kama warrami karayo yani wuxuu ka cudur daaranaya inaanu soo wada bandhigi karin nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam jawaanibul cadama qaybaha weyn ee uu leeyahay ayuha alaxiba filosofkii ingiriiska ahaa ee thomas carlyle la odhan jiray thomas carlyle waxa uu ka warramaya cibaadatul abtaal buuggiisan la yidhaahdo weynida ama batalnimada la caabudo dabeetana noloshuu qaybinaya midba meesha uu ku wenyay calaa kulli xaal wuxuu leeyahay diin marka aan ka hadlo ama rijaalka diin hoggaamiyey marka aan tilmaamo buu leeyahay محمد عليه الصلاة والسلام وحان شكي كتشرين بويري أعظم إنو يهي دتك الدين لغت المامو إنو هابو لي مصلح وين وأفتهنة وقيسية ومفكرة وصفاتك بنا آدم لغو أمانور دان لبويري وحانا أمانتي سكوغو في لنبولينة قرآن كي ساخر داغورا وقال إنجريس نكا وركن قرية ولذلك أيها الأحبة سنرستان الأسوج وسويدش ومستشرق سويدشة قرر قال يتبناد نولا أها أستاذ اللغات السامية بروفيسور لغات السامية دائرة المعارف كان رجي وحبضن قيب قاطعي كامدة أيا وحو ليه هي مؤلف كتابه كقول رمي قرآنك يا بايبلك القرآن الإنجيل المحمدي بوليه قرآنك وبايبلك النبي محمد يبوك له تاريخ حياة محمد ليلاه وحليه هي مستشرقة سوريش كاهي ومينن عدالة سمين النبي محمد حدينو إنكرنا بيري وحي والصفات ووين لها حدينو إنكرنا يتلمامها الغد دوران كربنا آدم ولها بوليه حدينو إنكرنا waxay ka marxaatahay tahay buu leeyahay inaan cadaalad samaynin waayo buu yiri nabi maxamed dagaal nololeed buu galay buu leeyahay uu la galay jahliga iyo hamajinimada waanu ku adkaystay mabdiisa ilaa iyo uu keenay buu leeyahay shareeco akmalu sharaa'ica waa shareecada maanta ragga badhay rabaan inay yidhaahdaan waa shareeco mutawaxisha ayuu ninka isuulishkii wuxuu leeyahay fa asbaxat shariicatuhu أكمل الشرائع شريعة سوحويا بولي شريعة الله ديغو توقفي عن أما وقدم يسترن وهو فوق عظماء التاريخ ويري دكي وويناية تاريخ دو شيكتا يوردنا وكسر رأيه غوتي واتغانين غوتي وشكسبير كا شرمل وما دافك شرمل كاكو هذا الشيء هل كشكسبير وجرى دات كافك إنجليزي كاكو هذا أيو غوتينا وجرى waliba goote shakespeare waxyaabo aan gabayga ahayn buu gali jiray gootaye uu dheer yahay goote baa wuxuu leeyahay haddaynu reer yurub nahay buu leeyahay waxa laaliya waxaynu afkaar hayno oo dhami ma gaadhaysa buu leeyahay tuu maxamed gaadhay waa goote baa wuxuu isbarbar dhigaya aaraad iyo afkaarta reer yurubka يلا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحدوني ذا كانوا سنين عدقيا داتنا وحليه هدين الرير قلباتنا هاي مفاهيمتين نورنا من مجاريسو إلى ما وصل إليه محمد وسوف لا يتقدم عليه أحد بولي مستقبل كان مفي لا يعد في دونتين يشري دونت بولي وقطعك شرمل ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان تاريخ دردن بان وحن باري بودي بني آدم كقف أن تصالة وقدقه
waxaan helay buu yidhi nebi maxamed inuu noqday bini aadamka qofkii aan tusaale uga dhigi lahaa sidaa awgeed buu yidhi waxaa waajiba inuu xaqu muuqdo oo korreeyo sidii uu maxamed u korreeyey ee uu dunida kelimatu tawxiid ugu kor yeelay buu leeyahy waa gabyaagii riwaayiga ahaa ee faransiis ee jarmal ee macruufkii aad taqaaniin dadka wax qoraa aad bay u badan yihiin laakiin waan koobaya waxaa jira gabyaa kale oo jarmal ah oo faransiis ah waa alfonso de lamartine alfonso de lamartine waa nin politician siyaasi buu ahaa oo second republickii faransiiska raggii qaybta weyn ka qaatay buu ka mid ahaa gabyaana wuu ahaa dabeetana wuxuu rabay inuu wax ka qoro buug buu leeyahay taariikhda turkiga ah turkigu wax ka qorayay maadaama uu turkiga wax ka qorayay waxa qasab ku noqotay turkiga dee diinta ay haystaanna inuu wax ka qoro uu milicsado dabeetana markuu akhriyey taariikhdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa 14 sano kadib muxaadaraadkii carlel uu jeedinayay kadib weeyaan markuu akhriyey ayuu wuxuu yidhi bini aadamka ama qaadada hormoodka bini aadamka kriteeriyaan u dhigayaa buu yidhi aynu ku qiimayno oo saddexa bal ninkanna kriteeriyadiisa dhegaysta wuxuu leeyahay waxaan ku qiimaynayaa 3 shay kow greatness of purpose laba smallness of means saddex outstanding results 3 shay baan wax ku qiimaynayaa buu yidhi qofka bini aadamka ahi inta ay sarraysay barbowskiisu himiladu raadcaynaya inta ay leekayd oo nebi maxamed himiladiisu maxay ahayd wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas baa ilaahay ku soo diray bini aadam oo dhan baan kuu soo diray baa ilaahay ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam bini aadam oo dhan inuu hoggaamiyo yaa ayuha almudahiru qum faandir warabbaka fakabbir wahiyaabaka fatahir baa lagu yidhi idan wuxuu leeyahay qofku inta uu ka fakaraya ama iskoobka uu gaadhsiisanaya aragtidiisu ay ku socotay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin baa ilaahay ku tilmaamaya kan labaad wuxuu leeyahay idan nebi maxamed universal buu ahaa waxa uu ka fakarayay caalamkao dhan baa ilaahay u soo diray jin iyo insigiisaba kan labaad wuxuu leeyahay smallness of means awoodda uu haystay inta ay leekayd dee nin maalan maanta ninka dawladda maraykan xukuma dee wuxuu haystaa miiniskii dunida ugu ballaadhnaayo nin madaxa gacantiisa gala hadday dhaqaalo tahay hadday hub tahay hadday dawlad tahay hadday technology tahay hadday dunida ciddii hoggaaminaysu maamulaa ama isagu ninkani qofku qiimaysanaya waa maxay qofkan waa inuu wuxuu haystayna inay wax yar noqdaan nebi maxamed markaynu eegno calayhi salaatu wasalaam dee wasaa'il dhaqaale ma haysan cidi lama soconnin inan yaroo agoona oo meel cidlaa ku soo koray tolkiya dadku ka dhashay meel saxaaroo lama degaa bay joogeen carabi magac iyo maamuus dunida kumay lahayn labada dawladooda waaweynee dunida ka taliya midnaba may ahayn yacni waxay ahayd uun meel bini aadam degan yahay meesha ugu dambaysa ee la tilmaamo ayay saxaara alcarab ahayd markuu nebi maxamed ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam qodobka saddexaad ee lamartiin wax ku qiimaynaya waxa weeyaan waa outstandingka resultska ka soo baxay nataa'ijka uu dhaliyey sida ay u weyn tahay nataa'ij raa'ica yacni nebi maxamed wuxuu leeyahay taariikhda bini aadamka haddaan saddexdaa shay ku qiimeeyo qof himiladiisu weyn tahay waxa agtiisa yaallaana ay yar yihiine awoodee u haysta midhaha uu dhaliyeyna uu midho caalamiyo aad u ballaadhan yahay markaan wax ku qiimeeya buu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay buu leeyahay qofka ugu mudan bini aadamkee la tilmaami karo